taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa saldhigga degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxa ay ku soo bandhigeen maxaabiistii ugu badnayd kuwaasi oo laga soo kala qabtay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir. maxaabiista maanta halkan lagu soo bandhigay ayaa waxa ay ku eedeysan yihiin eedeymo kala duwan oo ay ka mid yihiin qaarkood in ay dhac u geysteen dad shacab ah oo aan waxba galabsan, qaarkoodna ay ahaayeen shabakad isku xiran kuwaasi oo la sheegay in ay dhaceen lacag ku dhow 10,000 oo dollarka Mareykanka ah. afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gudaha saldhigga degmada Xamar Jajab kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay maxaabiistan iyo meelaha laga soo kala qabtay, isagoo sheegay in maxaabiista la soo qabtay maxkamadaha awoodda u leh la horgeyn doono isla markaasina sharciga la waafajin doono. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan la wadaagno howlgaladii ay ciidanka booliska Soomaaliyeed wadeen labadii toddobaad oo la soo dhaafay ay ka wadeen guud ahaan magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaybta guud ee booliska Soomaaliyeed waxa amar laga soo saaray horeyba lagu baxshay in askari ka tirsan dawladda nooc u raba ha ahaadee uusan baabuur ama isbaaro ama meel checkpoint ah lacag ugu qaadi karin gaari si walba ay ahaataba. arrinkaas oo ay ciidanka booliska Soomaaliyeedna si waadax ah fagaaro ugu sheegeen horey taliyaha qaybta guudba ugu sheegay arrimihii noocaas ahaa toddobaadkan gudihiis waxaa loo soo qabtay mid ka mid ah askartaas oo weydow ku hor istaagay gaari lacagna ugu qaatay oo haatan sidaad arkaysaan kaamirooyinkiin ay qaban karaan gacanta booliska ay ku jiraan. sidoo kale ilaa 70 ruux oo isugu jira dhac hubaysan iyo dad dhacay lacag 10,000 gaaraysa oo shabakad ahaa oo si farsamaysan ama turfa uga dhacay dadkii muwaadiniinta Soomaaliyeed hantidii lahaa ay soo qabtay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa idinkuba kaamirooyinkiin ay soo qabteen dad yow bajaaj wata oo dad gurigooda hor taagan intay qoryo la baxeen xabadeeyay wixii ay wateen taleefana iyo lacag ahaana ka qaatay. dhammaan dadkaasi gacanta lagu soo dhigay waxaana sahashay wada shaqaynta bulshada iyo booliska Soomaaliyeed. waxaan rabnaa maanta fagaarahan ay u taaganahay inaan bulshada Soomaaliyeed mar labaad codsi u dirno aan kaga codsanayno in bulshada Soomaaliyeed ay la wadaagaan ciidamada ammaanka dadka ku kaca falalka noocan oo kala dhaca iyo turufada tuugada iyo waxyaabaha la midka ah. sidoo kale waxaan mar labaad uga digaynaa bulshada Soomaaliyeed inaysan askari ha ahaado nooc kasta uu yahay inaan askari checkpoint taagan mise taagan goob kalaba aan wax lacag la sii karin cidii ay isku dayaan inay xoog ugu qaataanna ay soo nagu soo simaan oo ay soo ogeysiyaan laamaha ammaanka. numberka 99 ee booliska Soomaaliyeed ay soo wacaan nambaro cusub oo intii ka tira badanna hadda waaba la sii sameeyo bulshada Soomaaliyeed xogta ay la soo wadaagaan laamaha amniga. waxaan rabnaa dadkan waxay isugu jiraan kuwa maxkamadda toos loo geyn doono oo cadeyntoodii wata iyo kuwa baaris ay u dhiman tahay oo la baari doono lana cadeyn doono falka ay ku kaceen noocay tahay. waxaan rabaa inaan ogeysiyo dadka marka ay leeyihiin dadka ku kaca falka bareerka qofka hadduu qaangaar yahay uu sameeyo nina geed jaraayay geedka cagaftu ku dhuftay waa la soo qabtay waxaana la horgeynaa sharciga macnaha qofkii u diray hala soo xiro qof walbo qaangaar muwaadin Soomaaliyeed ah waxa waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo deegaanka iyo dadka. haddii adoo qaangaar lagu dhaha qori lagu dhiibo lagu dhaha qofkan soo dil miska soo dilaysa marka dishada ma waxa leeyahay kii uu soo diray hal raadiyo may ma suurta galayso. haddaad cagaf wado haddaad gaari wado haddaad wax kasta wado wax walba ku dhaqaaqayso guriga dumi lagu leeyahay yaa iska leh yaa xaq u leh saldhigga booliska ma og yahay ciidanka ma la socdaan inta dhan ina weydiiso muwaadinka shaqada qabanaya xaq u leh. taa bil cagsi waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed booliska Soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa cadeyn iyo falagaranso cidii aan ku qabano ayadoo falka geysanaysa ama ay kaamirooyinka soo qabtaan waa marqaati cad dambiile cad cid aan oga heebeysanayna inaan soo qabanaana ma jirto. waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya wada shaqaynta fiican oo ay nala yeesheen wargelinta dhow ayna siiyaan. haddana waxaan ka codsanayaa bulshada inta hartay inay la soo wadaagaan ciidamada wax walba amniga liddi ku ah wax walba oo turufo wada qofka dhaca geysanaya qofka amni xumada ka shaqeynaya gaariga aan la aqoonin war xarunta booliska kugu dhow ama askariga booliska kugu dhow wargeli si loo soo qabto. dhammaan maxaabiistan hubaysan ee hortiina ka muuqata ee
aad kaamirooyinkiina ku soo qabateen idinkaba waxaa la waafaji doonaa sharciga tallaabo adagna waa laga qaadi doonaa cid walba oo kaamira ka soo muuqata iyadoo dembi geysanaysa markaan soo qabanana kaamirada u muujinayna insha Allah taasna waa caddayn bulshada Soomaaliyeed inaad dhibtaad kaamira u soo duubtay inaan ku qabanayna kaamiraan kaaga duubayna waana mahadsantiin ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen dadaallo ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadka falalka lidiga ku ah amniga ka geysta caasimadda kuwaasi oo inta badan mararka qaar ka soo muuqda kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaano CCTV xasan kaafi xaaji maxamed saldhigga degmada Xamar Jajab Muqdisho